السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته soo dhawaada asxaabta waxaan rabaa inaan halkan idinkugu soo gudbiyo su'aalo fara badan oo ama social mediaha ama spaceyada markii aan tagno asxaabta ku cusub suuqan crypto ay in badan nagu soo celceliyaan waa ka mid tahay coin ha la ii sheego coinkeen iibsadaa coin maxaan ku xushaa su'aalahaas oo dhan oo dhammaystiran baan rabaa caawa inaan halkan idinkugu soo gudbiyo from A to Z si aad u noqoto qof independent ah oo isku filan oo coinka loo sheega baaran kara iska hubin kara ku qanci kara iibsanna kara si aad uga maaranto inaad qof dambe ku tiirsanaato coin inaad rabto inaad iibsato haddaad rabto waxaa lagama maarmaan ah qodobadan aan halkan idinkugu xusi doono inaad ka baarto ayaa laga maarmaan ilaa 9 qodob baa halkan idinkugu soo xulay waa laga yaabaa kuwo kaloo badanna inaad adiga caqligaaga markaa kaashato aad ku darsan karto kow coin markaa rabto inaad iibsato waxaa laga maarmaan ah inaad ka baarto 9kan qodob ee aan halkan kusoo xulay okay 9kan qodob waxaan kow ugu horreysiinaynaa ama aan ka bilaabaynaa token matrix saaxiibkaa baa coin kuu soo sheegay coinka uu kuu soo sheegay inuu fiican yahay inuu xun yahay maxaa ku garan kartaa si aad u baarto coinkaas waxaa u baahan tahay wixii aad ka baari lahayd coinkan inuu kuu qalmo kuu cuntama aad ku ogaan lahayd baan rabaa inaan halkan kuugu soo sheego A to Z 9kan qodob baa u baahan tahay waxaa u baahan tahay tokenka inaad ka baaratid token matrix waxaa kaga baahan tahay inaad u baaratid token holderska waxaa u baahan tahay inaad ogaadato how this token will be deployed ama sidee coinkan kusoo baxaya oo lagu soo coinkan sidee suuqa kusoo geli doonaan then waxaa samaynaysaa price prediction waxaan kala jeedaa macnaha coinkan markaa geshid oo aad u baahan tahay target price aad rabtid inaad kaga baxdid sidee ku ogaanaysaa target pricekaas coinkan inuu kuu gaari doono asxaab fara badan waxaa ognahay inay sameeyaan shiba inu way iibsanayaan wuxuu ku leeyahay 1 milyan oo shiba inu waa haystaa next year $1 markuu ii gaaro I will be millionaire waxaas ma shaqaynayaan see ku ogaanaysaa shiba inuu $1 kuu gaarayo ya taasna waxaan ka samaynaynaa price prediction waxaan number 5 ka dhigi doonaa project use case waxaanu ku xijin doonaa project team marketing and social media communitygooda iyo sidoo kale coinka inuu hype leeyahay iyo income kow waxaan ku hormari doonaa token matrix halkanaa ka baxaysaa waxaad tegaysaa coin gecko ama coin marketka labadoodaba labada meelood ee coinka laga baarto wey waxaan tusaale hadda idinkugu soo qaadanayaa coin anigu aan soo xulay baan coinkaas idinkugu soo qaadayaa tusaale idinka siinayaa tusaalahaasoo kale baa idinkuna ku dabaqi doontaan hadduu ilaah yidhaahdo coinka magaciisa waxaa la yidhahdaa GLQ okay GLQ markuu saa kugu soo baxo waa graphic link chain baa la dhahaa waa ku dhufanaysaa coinka then waxaa kuu soo baxaya coinkan informationkiisa oo dhammaystiran baa kuu soo baxaya si marka coinkan warbixintiisa oo dhammaystiran intaa u baarno aan ugu qanacno waa inaan xabad xabad u fiirinaa waxaanoo dhan marka la isu geeyo coin matrix waxaa la yidhaha coinka tiradiisa iyo si usoo kala baxayo laakiin aniga waxaan isugu kiin soo koobay all of them token matrix baan isugu kiin soo duubay waaye coinka markuu sidanoo kale kugu soo baxo awalu shardi halkan waxaad taabanaysaa max markaad taabatid waxaa ogaanaysaa chartigiisii wuxuu kuu soo saarayaa from A to Z maalinkii coin gecko laga soo list gareeyey ilaa maanta inta u dhaxayso coinka pricekiisii halka uu gaaro halkan kaa tusaa horta then waxaa ogaanaysaa the bigger picture waxaa arkaysaa coinka ma kacsan yahay mise waa dhacsan yahay coinkan already si fiican buu u dhaqaaqay laakiin still informationkiisii waa u geli doonaa waaye kasoo gudub marka halkan inoo imo ugu horreyn halkan waxaa ku qoran market cap coinkan lacagta ku jirta tiradiisa inta ay la eg tahay baa halkan lagu soo qoraa market capka coinkan wey coinkan waxaa ku jirto 32 milyan
iyo 632 iyo 540 doolar. taas marka waxay ku tusaysaa suuqan waxaa ka jira 3 qaybood baa loo kala qaybiyaa coinanka meesha yaalla marka loo fiirinayo market capkooda. waxaa jira high market cap, waxaa jira mid market cap, waxaa jira low market cap. high market cap waxaa lagu qiimeeyaa coinanka boqolaalka milyan ah ilaa kuwa bilyanka inta u dhexeeya waxaa la yidhaahdaa high market cap. coinanka u dhexeeya 50 milyan ilaa 1 milyan inta u dhexaysana waxaa lagu sheegaa 100 milyan iyo wixii ka hooseeya ilaa 50 milyan lagu soo gaarana waxaa lagu sheegaa medium market cap. 50 milyan wixii ka hooseeya ilaa 1 milyan loo gaarana waxaa lagu qiimeeyaa coinankaasi low cap, low market cap. waa coinanka lacagaha ku jira ay yar yihiin. market cap haddii lagu sheego waa lacagta ku jirta tirada lacagta ee coinka ku jirto. coinkan marka still waa low cap maadaama uu 32 milyan keliya ay ku jirto, still waa low cap. indhaha saa markaa ugu fiiriso markiiba waxaa aragta 32 milyan baa ku jirto. coinkan marka waa low cap. waa ka soo degaysaa coinka markaad halkaa ka soo degtid waxaa fiirinaysaa intaadan horta halkaa ka soo degin adigu waa inaad taqaano oo uu targetkaaga aad taqaano coinanka aad rabta inaad maalgashato. ma high capkaa rabtaa inaad maalgashato mise low capka? waa inay kuu caddahay targetkaaga meesha u socotid. haddaa high capka rabtid marka waxaa leedahay coinkan waa low cap, then still haddaa rabto waa sii baaran kartaa, laakiin waa inaad maskaxda ku haysaa coinkan still waa low cap. kasoo gudub marka coinka market capkiisii waa aragnay, waa ku qanacnay bilmatal kaba soo qaada waa low cap, it's good chance. coinka lacagtiisa ma badno, aad uma badna, waa iska meel dhexaad, good, waa ku qanacnay. maxaan rabnaa oo kale inaan sii ogaano marka coinkan marka wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo max supply. max supply waxaa kaloo halkan ku qoran total supply, waxaa kaloo halkan ku qoran circulating supply. coinkan marka max supply coinanka qaarkood baa leh qaarkoodna ma laha. kuwa max supply-ga leh micnahoodu waxay ka dhigan tahay xaddiga ugu badan ee lasoo saari karo oo ugu dambeeya waa tirada halkan ku qoran oo ah 500 milyan oo wax yar dhiman. marka coinkan max supply-giisa tirada ugu badan, xaddiga ugu badan ee soo bixi kara waa max supply. okay, waa garanay xaddiga ugu badan ee soo bixi kara, laakiin hadda suuqa maxaa yaala? xaddiga ugu badan ee soo bixi kara waa intan, laakiin suuqa intee in la eg baa hadda taala? waxaa fiirinaysaa marka circulation supply. circulation supply-ga coinka waxa weye gool weyn buu ka ciyaaraa. haddii circulation supply-ga coinka uu aad u tira yar yahay, maxi supply-giisana uu aad u fara badan yahay, taas micnaheedu waxa weeye coinan fara badan baa weli bannaanka ku maqan oo imaan doona. waxaana suurtagala haddii coinankaasi ay kugu soo baxaan inuu qiimaha briceka suuqa uu markaas hoos u dhaco, isagoo aanan coinankii layska iibin ama dad fara badan ay ka tagin oo projectigii weli sidiisa u dhisan ama shaqaynaya, baa coinan badan ay kugu soo baxayaan, kadibna waxaa dhacaysa suuqaasi inuu hoos kugu dhaco. inta badan coinanka cusub baa u badan oo supply-gooda in badan oo ka mid ah suuquu ka maqan yahay. maxaa marka fiican? because kanna waa arkaa kanna waa arkaaye aniga macnaha ii samaynaysa maxay tahay? macnaha adiga ay kuu samaynaysa waxa weeye coinka supply-giisa hadduu boqolkii minimum boqolkii 30 wax ka yar haddii circulated uu yahay, waa inaad feejignaata oo aad qalbiga ku hayso coinkaasi xaddi fara badan baa ka maqan. waa inaad marka baaris dheeriya ku samayso xaddigaa faraha badan leh si fafaalaha iyo sababta uu kusoo bixi doono. haddii 50% wax ka badan ay suuqa yaalaan, marka coinkaasi inta badan waa aad buu u fiican yahay. hadda marka coinkani max supply-giisu waa 500 milyan. hadda laakiin suuqa waxaa yaala oo dadku ay haystaan oo la kala iibsanayaa 3 milyan 40,000. 3 milyan iyo 40,000 baa hadda suuqa taalo oo la kala iibsanaya. intaa waa isla galana sooma.
340 milyan, sorry waa idinka qaldayaa, 340 milyan weeye halkan. oo taa micnaheedu uu yahay marka boqoley loo qaybiyo boqolkii konton wax ka badan baa circulated ah oo hore loo kala iibsaday. marka coinkan caafimaadkiisa ma xumo. markaan arko in circulation supply-ga maxi supply-ga uu intaan yahay, circulation supply-ga uu ka badan yahay boqolkiiba konton, market cap-kiisa aan fiiriyo oo aan ku qanco oo iraaho xisaabtaani alla ilaah waa wanaagsan tahay oo waa ku qancay, waxaa u sii gudbaysaa coinkan marka projectigiisa. intaadan projectigiisa aanan u gudbin, waxaa fiirinaynaa coinkan holderskiisa. coinkan circulation supply-ga intan maqan, warma ninka coinka iskale keliya iyo 4 qofood baa haysta, mise waa coin dadkoo dhan ay wada haystaan oo waxa weeye mataqaanaa xaddi fara badan uusan hal qof gacanta ku hayninba. because haddii xaddi fara badan oo coinka ah ay hal qof ama 2 qofood ay gacanta u gasho, waxaa suurtagal ah inuu qofkaasi iska iibiyo, thenna priceka uu si xawli ah hal mar hoos ugu soo dhaco. taana waa lama huraan marka inaad ogaatid, inaad fiirisid coinkan circulationka ku jira cidda haysata. waxaa ku dhufanaynaa coinkan hadda contractigiisa inkastoo uu blockchain dhammaystiran yahay, haddana contractigiisa wuxuu ku dhisan yahay Ethereum. waxaa fiirinaynaa marka Ether scankan ka dhex fiirinaynaa holderska coinka. waxaa copy garaysanaynaa contractiga, waxaan ku dhufanaynaa Ether scanka. markaan ku dhufanay isla markii horuu nooga soo baxay. informationka marka badankoodu waa wixii hore aan kusoo aragnay, market capka iyo waxa weeye mataqaanaa max supply-ga iyo informationkan waa informationkii hore aan ugu soo aragnay. maxaan rabnaa annaga targetkeenu uu yahay oo halkan aan u imaanay, waxaan rabnaa inaan ogaano token holderska. tokenkan marka waxaa haysta oo coinkan haysta 8,800 oo wallet buu ku kala jiraa. waxaa laga yaabaa in intaas ka badan uu ku jiro laakiin ay exchange-ga yaallaan. laakiin walletkan addresskan waxaa haysta 8,800 oo qofood baa haysta. percentage-ka ay u kala haystaan baan rabnaa inaan ogaano oo muhiimaddeena ay taho halkan aan u imaanay. halkan waxaan ku dhufanaynaa token holders. okay, token holderska markaad timaado, halkan waxaa ku aragtaa marka xaddiga tirada ah ee la kala haysto. xaddiga ay u kala haystaan baa ogaanaysaa. halkan every wallet iyo inta uu haystaa ku qoran. then waxaa rabnaa inaan waa sii ogaan doonaa walletkan ma walletkii create gareeyey oo ku jirtay liquidity-ga coinka ay ku jirtay miyaa, mase wallet uu shaqsi leeyahay waaye. baaris dheeri ah baan taas kusii samayn doonaa. laakiin wixii intaa kasii hora, halkaa wallet wixii kasoo hara, dadku waxay u kala haystaan 2%, 2%, 1%, 9, 1.7, which is aad iyo aad u qurux badan. so good. ma fahamtay? dadka intiisa badan waxay haystaan 1% up to 2% iyo wax ka yar. marka coinkan waa coin oo distributed ah oo kala aad u qaybsan oo aanan hal qof gacantiisa ku jirin. halkaa wallet marka waxaa laga yaabaa inuu yahay walletkii lagu soo deploy gareeyey contractigan. walletkii coinkan lagu soo deploy gareeyey ee liquidity-ga ay ku jirtay baa laga yaabaa inuu yahay. laakiin inta kale coinka waxay u kala haystaan percentage aad u fiican oo less than 2% ah. haddii 5% ay tahay waa isku okay, laakiin more than 10% coinka haddii hal qof gacanta ugu jirto ama 4-5 qofood ay gacanta ugu jirto, waa laga fiican yahay coinkaas inaad qaadataa. maxaa yeele waxaa laga yaabaa in lagugu soo daamgareeyo oo lacagtii qofka hadduu iska iibiyo priceka uu si xoog leh hoos ugu soo dhaco. intaa waa isla garanay, waa ka gudbaynaa marka. waxaan gelaynaa marka projectiga gudihiisa iyo coinkaas siday kusoo kala saari doonaan. projectiga xaggeen ka helaynaa? websitekiisaan galaynaa marka. websiteka projectigaan ku dhufanayna. halkan waxaa ka heli doonaa informationka ah coinankan iyo siday kusoo kala bixi doonaan. price predictionka waa samayn doonaa isagana. waxaa kaloo ugu tegi doonaa project use case, waxaa ugu tegi doonaa project team, kadibna waxaa usii gudbi doonaa social mediahooda iyo marketkooda.
marketingkooda. laakiin hadda halkan maxaan ka baaraynaa coinkan siduu usoo kala baxayo. waxaan samayn doonaa price predictionka, waxaan samayn doonaa, waxaan arki doonaa project use caseka, waxaan fiirin doonaa project teamka. good. halkan nagu celi marka websitekooda hadda markaa saa u timaado waxaa ku qoran waxay sheeganayaan oo dhan oo information oo dhammaystiran baa halkan ugu imaanaysaa. kow, projectigan waxay sheegteen inay yihiin the blockchain ecosystem built for non-chain automation and dApps powered by AI. projectigan marka waa blockchain waana AI oo automation AI dAppska lagu dhiso. waa blockchain dAppskuu sameeyaa waana AI. marka maxaa soo herla coinkan waa low cap, more than 50% baa circulated ku jira, max supply buu leeyahay oo xaddi intaa ka fara badan ma soo bixi karo, 500 milyan wey maxigiisa, more than 50% baa circulated ah, waana low cap, waana blockchain, waana AI. maxaan soo helnaa marka intaasoo information baan isku haynaa. waxaan rabnaa marka inaan ogaano informationkan uu sheeganayo inaan deeply usii gudagalno oo xabad xabad u baarno oo inay shaqaynayaan aanu ogaano baa u baahana marka. good. hoos u soo deg marka. waa graphic link blockchain, graphic link protocol. waxay ku leeyihiin a powerful platform that enables developers to build and deploy decentralized application with easy. soo ma aragtid blockchain weeye lagu dhisi karo dAppska to build to deploy decentralized application decentralized ah oo adiga iyo blockchainka aan cidi idiin dhexaynin baa lagu dhisi karaa. halkaas ku qorta. halkan maxaa ku qoran provides no code tools for creating complex application without the need for coding skills. halkan muxuu kugu yiri marka uma baahnid inaad taqaano coding, uma baahnid inaad taqaano IT. without IT baa waxaa halkan ku samaysan kartaa applicationska, which is good sign. wuxuu ku leeyahay marka waxaa lagu samayn karaa dAppska oo si decentralized loogu samayn doonaa. halkaana wuxuu kuu sheegay dAppska aad samaynaysid uma baahnid inaad coding taqaanid, ee adoon aqoon u lahayn baa si automatic ah baa ku samayn doonaa. waana u tegi doonaa waxaan ay sheegayaan inay shaqaynayaan iyo in kale baa gudihiisa sii geli doonaa. waaye kasoo gudub marka, kasoo gudub effortless setup with no code and AI. kasoo gudub automatic logic across multiple chains. okay, chainan kala duwanna uu sameynaya, execute, monitor and analyze real time data. good. okay, waxaan oo dhan waa aragnay. informationkan uu sheeganayo waa AI, waa blockchain, dApps baa lagu dhisi karaa, waa information fiican. waxaani wax run ah miyaa, wax reality oo real oo shaqaynaya mise waa wax hadda kadib imaan doono. ya taasaanu sii baarayna marka. good. halkan marka wuxuuna keenay stakingkooda, walletkooda, interactionkooda, something IDO breach iyo waxaas inay sameeyaan. okay, maxuma websitekooda nagu celi marka. okay, halkan way marka start build. okay. start build. okay, hadda marka halkaa maxaa inooga cad? waxaa inooga cad wixii ay sheegayeen at least wax ka mid ahna inuu shaqaynayo. I don't know, aniga ma garanayo hadda sidii de application loo deploy gareyn lahaa, laakiin waxaa aragnaa inuu wixii ay sheegteen at least ay shaqaynayaan. shaqadii ay sheeganayeen inaanay wax beena ahayn oo ay shaqaynayaan baa halkan inooga cad.
waa ka gudubna marka si waqtigu inoogu beeqaamsamo waa ka gudbaynaa maadaama aan ogaanay wixii ay sheegteen wax shaqaynaya inuu yahay halkan waxay noogu sharaxayaan sida loo sameeyo then waqti baa siinaysa haddaa u baahan tahay sida wax loo sameeyo short long balabala waxbay halkaas kusoo qoreen then informationkaasaa helnay soo maaha okay halkan kadib waxaa usii gudbaynaa hadda halkan waxaan uga sii gudbaynaa social mediahooda waxaan tegaynaa social mediahooda iyo waxooda siday u shaqaynayaan ma dad seexdayba ma dad hurdayba ma dad soo jeedaa wixii wax shaqaynaya ma yihiin baan kusii dhufanayna good waxaan tagnay twitterkooda goorma ugu dambeysay 8 January kaas way pingareeyeen qoraale iyo waxbay kusoo qoreen halkan videona way soo geliyeen halkan 8 saacadood ka hor bay soo dhigeen kan April 24 midab bay soo dhigeen okay halkan waxaan ka aragnaa dadkan dad fadhiya ma aha waa dad shaqaynaya social mediahooda wuu shaqaynayaa okay dib baa ugu noqonaynaa waxaan fiirinaynaa tiimkooda mararka qaarkood tiimka banaanka ma yaala mararka qaarkoodna waa qarsoon yahay mararka qaarkoodna tiimkooda waa qarsoon yahay mararka qaarkoodna banaanku yaala then trusted leaders by users waa kuwaana dadkoodii marka waxaan ayagana waa kusii dhufanaysaa CEO waa kana waa sii dabagalaysaa mid baa usii baaraysaa si aa u ogaatid dadkani dad aqoon iyo xirfadaas iska leh inay yihiin soomaadan garan intaas marka aad kasoo baarto haddana dib waxaa ugu noqonaysaa waxaa fiirinaysaa haddana telegramkooda twitterkoodaa tagtay waad ogaatay waa ka gudbaysaa haddana waxaa ku dhufanaysaa telegramkooda okay mutaabiciintooda waxaa ku jirta halkan 6,000 iyo xoogaaba ugu jirto zaa'id uma badna dadkoodu mana yara waa iska meel dhexaad ma xuma marka projectiga markaa intaas ka soo ogaatid waa intaa isla soo heshid alla ilahay markaasa waxaa ogaanaysaa waxani wax lagu qanci karo inuu yahay iyo in kale maxaan u noqonaynaa marka marketingkooda waa aragnay communitygooda waa aragnay teamkii waa aragnay project use case waa aragnay maxaa tegaynaa hadda marka price prediction aa tegaynaa price prediction waxaa ka wadnaa war waxani waa gadanay waxaan rabnaa inuu qiimo noo gaaro qiimahaasi aan rabno ma noo gaari karaa waxa aan ku haminayno wax uu gaari karaa ma yahay horta coinkan hadda market capkiisu waa 32 milyan haddaan rabno marka $1 inuu noo gaaro waa in market capkan lacag $1 gaarsiin kartaa waa inay soo gashaa si pricekan uu $1 u gaaro may fahantintaa pricekan $1 inuu gaaraa waa inay soo gasho market capkan lacag $1 gaarsiin karta $1 iskama tegi kara haddiisan pricekan market capka lacag haddaysan soo gelin oo lacag xaddiga gaarsiin karta $1 aysan soo gelin ma tegi kara $1 waxaa fiirinaya marka logic ma tahay lacag macquul ah $1 inuu tago lacagta uu u baahan yahay lacag suurtagala ma tahay si u ogaana marka maxaan qaadanaynaa coinkan inuu gaara $1 haddaan $1 targetkeygu uu yahay oo aan ka sugayaa $1 si $1 coinkan uu u gaaro imise intee lacag uu u baahan yahay waxaa qiyaasayna marka lacagtaasi lacag suurtagal oo suuqan soo geli kartaa ma tahay $1 inuu gaaro marka intee in la-eg baa uga hadhay briceka coinkan hadda wuxuu joogaa 0.095 5 centiga nagaba buuxiba marka waxaa nooga dhigtaa 10 centi nooga dhig just say 1 cent si xisaab yaroo fudud aan u helno waxaan leenahay briceka waxaa weeye mataqaanaa target bricekeenu waa $1 ka soo qaata $1 okay $1 oo loo qeybiyey 0.1 soo ma aada fahmi muxuu u baahan yahay 10x u baahan yahay si halkaa u gaaro muxuu u baahan yahay 10x u baahan yahay si marka bricekan uu halka dollar u gaaro 32 milyan ee meesha ku jirtaa waa inay 10 jibaaranto
230 milyan oo lagu dhuftay 10 waa meeqo? waa 320 milyan priceka coinkan waa inay si uu u gaaro $1 suurtagal ma tahay projectigan inuu soo galo marka 300 milyan inuu gaaro suurtagal ma tahay? Of course waa lacag loojiga wax weyn oo fooqal caqli maaha maynaan 300 trilyan u baahannahay 300 bilyan baan u baahannahay maanaan dhihin it's normal 300 milyan 10x haddii buur ranka la gaaro it's normal waa wax la gaari karo oo macquula halkaasoo ila maydan garan wax aan logic ahayn aadan u xisaabsanin intaa markaa isla soo hesho allaylehe oo coinka matrixgiisa iska soo ogaato oo market capka soo ogaato oo aad projectiga coinka soo ogaato oo aad prediction oo teamka iyo waxaasoo dhan iyo community ogaato waxaa haysataa information kugu filan aad ku maalgashan karto soo maadan garan information kugu filan oo ku maalgashan karto baad ka haysataa inahaas iyo ina la mid ah waan kusoo koobaynaa waxaanu kusoo xijin doonaa casharo yaryar oo gaagaaban oo kale oo aan kusoo bandhigi doono wixii markaas toobiga oo aan u aragno inay asxaabta uga baahan yihiin caawinaad insha allah hadduu ilaah yidhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu